السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمة قاية هيا مدوائي سلامي مركلة يسكو صنع ضراكسن وولكن مسلح عبدي يوتيوب كاد قد داونيسان ويوتيوب كني ويوتيوب كي سومالي محمد ولان فضلا هدي أي تهي بوقشة كو ريسا سبسكرايب كنوصر لايك تنو قدر جنبالي كان فرو سمو قالا أن سوق لي أو نقطة قف كو رأي داودا مهد سنت سولو هذا محان إيدين سيدا واي مانتا وحان نو سيدا برنامج آد ولا يابلن وحبي كدريهن قفبا وحبا كيابيا مالين دحداس ayaa social media waxa la soo galiyay arin aniga maslax ahaan iga daadegi weysay macquulna ila noqon weysay arintaas oo ahayd nin lagu sheegay malabsaday saddex xasle afar xasla maqasheen waxa soo bedelay saddex xasle barnaamijyadiisa YouTube badan ayaa baahiyay oo aad iyo aad u fara badan laakiin anigu maslax ahaan waan ka gaabsaday sababtaan uga gaabsaday wax kala ma ahan waxaan xisaabiyay sida wax u dhacayaan inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin qof kasto bini aadan waxa waajib ku ah wax walba uu sameeynaayo inuu ka fiirsado runta iyo beentana way kala qurux badan tahay social media wuu dhax daatay aad iyo aad u faa'iideystay asagoo waliba waxyaalo aan maskaxda galayno oo qofkii aqli leh oo fahmaayo sameynaya maxaa kamid ahaa kelmada afkiisa aan ka maqlaa waxaa kamid ahayd aniga waxaan deganahay qolkan saddexda gabdhood waxay degan yihiin qolkaas markaan rabo inaan ilaahay u dhawaado ama xaajada aan gutane miday iska soo bixiyaan ari carbeed miyaa gabdhaha markii la leeyahay miday iska soo bixiyaan markaan xaajada gudanayo anna kaligay qol baan seexday saddexdooduna qol bay seexdaan ari carbeed miyaa gabdhaha waa waxa aad ula yaabay waxaan dareemay sheekadan inay wax badan ka qaldan yihiin sababtoo ah waxyaalo waxaa jira anshaxa aan ku qurux badneen waxyaalo waxaa jira eray ahaan ku dhawaaqistiisa aanan qurux badneen waxyaalahaas ayaan ka dhex maqlay waxaanan xisaabiyay marka aniga maslax ahaan inay waxaani wax ka qaldan yihiin alxamdulilah rabbil caalamiin mar waxaa jirta ilaahay waxa saxda oo rabbi kugu aadinayo mar waxaa jirta waxa saxda oo rabbi kugu aadinayo aniga aad baan uga shakiyay si walbay ahaataba arinta markii hore meeshay ka soo bilaabatay iyo hadda meeshay ku biyo shubatay waxay noqotay laba waji oo kala nooc ah wajiga koowaad aan ka bilaabaynaa bal muuqaalkii koowaad dhowr muuqaala laga dubay tiifiye waaweyn oo caalami ah intay u tagay inay muuqaalo ka dubanay soo baahiyeen way garteen amalina waa lagu fashilma marka la xaasil muuqaaladii dhowrka xabaha mid ka mid ah ila daawada marka waa markii ugu horeysay oo soo shaacinayay inuu saddex reer oo hal guri ku hayo micnaheeda saddex xaas oo asaga oo isla qabo oo hal qol saddexdoodu ay sariir wada seexdaan asaguna oo sariir gooniya seexdo way faatamalna yaani tubeytaana laba shan camal micnaha laba shan camal saddexdoodana qol ay seexdaan asna qol oo seexda sidii aragina ama wax yaani iska easy camal xabad u soo baxsadaa xabad oo soo baxsadaa xabada markaas yaani ayaga go'aan soo gaaraya mid iska soo bixinayaan soo asaga hadalkii markaan xaajada gudanayna mid iska soo bixiyaan habeenkii inta anigana deganahay ayaga qolkaas kale degan yihiin cuntada waa la isla karsadaa way isla seexdaan micni gabdha isla dhashay camal guriga isla degan yihiin habeenba mid marka la siiba si walba ahaataba marka muuqaalkii hore waa kana ila daawada waxa waaye maxaa la yiraahdaa waxaan deganahay gurigeena waa weyn yahay waxaan deganahay laba qol kamid ah waxaan degan aniga oo hadda kula hadlayo waxa qolkayga jiifto iyo nidaamkayga fadhiyo waa qolka kale tan waxaan degan gabdhaha marka waxa waaye waqtigooda iyo jawigooda waa saxan yahay mid kamid ah habeenkii waxa waaye faatixada iyo aan ilaahay u dhawaanin maaragtay ayaga soo gartan Allahu akbar alxamdulillah walaa ku faraxsana maadaama aan isfahanay gabdhii hal meel isugu nimaanay wax badan aan isla dhaqanay kale hadda waan ku faraxsanahay nolosha aan ku noolnahay aniga nolosheeda waan ku qanacsanahay xaajigeyga iyo gabdhaha farxadan kula noolahay
sida farxadda reerkay kula noolaan jiro kaleeto. يعني تاس معناها فسرات مو وباهنا يعني وحا أنا كوقنا عسناي بهيت مهنا ما دام حاسك ودن بيسي ويعني وقرسنايو كفرح سنة waxaan filayaa inaad muuqaalkii koowaad aad daawateen muuqaalkani wuxuu ka turjumayaa nin 3 gabdhood oo xaas ah isla guursaday min weyn min dhaxaad iyo ilaa min yaro kasoo gudub arrinta markay saas u dhacday baraha bulshada oo dhan lagu baafiyay waa la booday heeryaa ay wacdo dhan waa ka soo hadleen halalala nin kala yimid saddexaas la yimid habelo baa yimid malabsada la dhahaa kana la dhahaa qara wuxuu kula imtixaanaa meelaha gabdhaha isku cadeeyana u furan dumarkii Soomaaliyeed aad waxay u jecleen cosmeticska alaabta la isku cadeeyo alaabta la isku qurx dumarku dhan ka siman dumarku waxay jecel yihiin alaabta la isku cadeeyo cosmeticska ma fahanteen marka meeshaas soo joogaha leeri gabadha timaada wuxuu leeyahay aan isguursanna miya ma aqaan waa sida la sheegayay tiktokyada lagu sheegay meelo badan oo lagu baabahiyo arkay waxaa dhacday ninkan guri asaga walaalkiis uu leeyahay ama uu degan yahay anigu ma dhihi karo uu leeyahay ama uu degan yahay ayuu 2 qol ka diyaarsaday 2 qol oo ka diyaarsaday sidaan idin sheegayba qol asaga wuxuu yiraahdaa degan qolna wuxuu yiraahdaa gabdhaha isla degan kushiinku waa hal meeshaas la isku maamulaa 3 gabdhood oo la isla qaba hal qol la isugu keenay wajigooda isku hor ay imaanayo kushiinka isla joogaan musqushay iska sugsugaan sariirtay iska sugsugaan si walba ahaataba waa barnaamij camiraad ah oo waxba ka jirin waxba aysan ka jirin bulshadina waa laga dhaadhiciyay marka ugu horeyso waxaan aad u cambaareynayaa ninkaas beenta uu sheegay qaladka uu gabdhaha Soomaaliyeed ka galay aan dhahayo qalad ayuu gabdhaha ka galay macnaheedu ma ahan gabdhihii riwaayada la jilaayay inuu qalad ka galay ee waxa aan ka hadlayo waa gabdhaha Soomaaliyeed kale kuwan way la og yihiin waa dulmigay wax ka og yihiin waana qalad diin islaam xataa kuma qurxoona gabar aadan qabin waa qaba inaad tiraahdo ka dambiya ka soo raacaya way faantaan wala malabsaday sheekadiisi waa la soo baaray sida loo soo waday ogow Soomaali waxba kama qarsoomaan banaanka la keenay markay banaanka timido xeer iyo fandhaal kala dhaceena meel uu ka bilaabo ayuu waayay wuxuu ku khasbanaaday TV-yadii oo siiyay warbixinta beenta ah ayaa kalarka ku soo dhagay wuxuu ku khasbanaaday inuu eragaasna beeneeyo oo mar labaad muuqaal kale laga duubo kadib markii muuqaalkaas laga duubanay sababta ku kaliftay oo ka cadeeyo meesha baashu 5 la isla galay 5 la isla galay maxaa ku soo xigay videogii dambe ee markii la qabtay oo sheekadu soo fashilantay oo arintu meel xun ay gaartay oo la yiri waxaad ceebeysay TV-yadan oo waaweyn oo caalami ah waxaad qalad ka gashay shakhsiyaad wariyaal ah oo aad been u sheegtay caday sheekadii uu soo fadhiistay hadda qofka markuusan xishoonaynin uusan diin lahayn uusan iimaan lahayn uusan aqli lahayn uusan sharafta gabdhaha inuu ilaaliyo uusan jecleen tan oo kale way ku dhacaysaa mar labaad uu soo fadhiistay asoo wajiga iska fiiqaayo muxuu yiri bal ila daawo ujeedkii ugu dhalay in aan arrinkan sameeyo waxay ahayd maxaa la yiraahdaa bulshadii aan wax cusub loo hor imaano marka maadaama aan si fiican maskaxdeena tuujinay aan fikirno waxa noo soo baxay in aan arrinkan ku dhaqaaqno si aan anagana waxa waaye hadal hees badan uga dhalato oo waxa waaye nugula mashquulo intaas ay naga ahayd laakiin waxa hadda aan isdhigi karnaa mistake koowaad aan gashan waxay tahay in aan TV-ga been aan u sheegno soo si aysan qorshihi nooga dhicisoobin oo san warkan ayagan eedaan wareysiga ma qaadeen oo been u noqday aan wax walba matalada si xataa aan familkeen qaar kamid oo familkay qaar kamid aan ku dhaadeen soo wacan ilaa ninka waryaana wareysanayo waa nin yaqaan aniga yaqaan familkayga yaqaan marka familkay markuu soo wac waxaan ku dhahay ninkaas maxaa la yiraahdaa waxa ka jira ku dheh wuu qabaa ku dheh waa ku ognaa ku dhaha saas ogeed wada watana u malaynaya muuqaalkii waxa aad ku cayaaraysaana waxay ahayd wixii adinka laydinku dhalay qaabkii adinka laydinku dhalay ayaad dheel ka dhiganayseen markaad guur maqasho waa guur xalaal ah diin iyo dhaqan iyo anshax ku dhisan kadib markay intaas dhacdo ubad ayaa lagu dhalaa sida adiga lagugu dhalay oo kala camal haddii aad meher ku dhalatay
meherku waa waajibaadka ugu waaweyn ee la ilaaliyo been buu ka sheegay waliba mid ma ahan labana ma ahan saddex ayuu ka been sheegay asagoo waji ka raadsanaya bulshada Soomaaliyeed asagoo waliba ku andacoonaya inuu saameyn bulshada inuu ku yeesho uu rabo saameynta ma taqaaniin wax kale ma raadinaynin wuxuu raadinayay inuu caan noqdo oo kaliya ayuu saameynta ku raadinayay saameynta waxa laga raadinayay waa bulshada Soomaaliyeed waxa markasta la qaldaayana waa bulshada Soomaaliyeed okay Soomaali waxa dardartay caannimo war caannimo maxay tartaa way su'aasha caannimo maxay tartaa way su'aasha markaad rabto inaad caan noqoto ee qaabkan oo kale aad samayso bari maxaa ku soo xigay hadii ku suurtagal weyso inaad soo dhar dhigato horaan u aragnay waa dhar dhigteen horaan u aragnay kuwa wax walba sameynaya horaan u aragnay kuwa maanta aanan bini'aadan lagu tilmaami karin walina bulshada Soomaaliyeed hor taagan dad fara badan oo caannimo raadiskeeda dhibaato badan u sameeyay dad fara badan oo inay caan noqdaan darteeda wax badan u sameeyay oo Ilaahay raali ka ahayn oo bulshada raali ka ahayn oo ayaga nafsadooda garaafa ama yacni future-kooda dambe dhaawac u geysanaysa sameeyay asagoo marka caan raadinaya caannimo haddii Ilaahay ku qadaro wad noqonaysaa caan sidee lagu noqdaa marka caan maxaa lagu noqdaa marka Soomaalida hal lagu barta besay ka tahay marka hal lagu barta besay ka tahay hal lagu barto ma xuma caan hadaa maqasho waa qof la barto celebrity ah sidee lagugu bartay marka haddii sumcad darro lagugu barto qiimaha aad leedahay waa maxay marka haddii maanta lagugu barto maxaa la dhahaa wax alle uusan raalli ka ahayn maxay ku tartaa caannimadaada haddii lagugu barto wax kabaa'ir ah oo dembiga iyo macsi ama adigoo isqaawiso cooradaada bannaan tahay maxay caannimo kugu tartaa haddaad u gafto aayadaha qur'aanka ee Ilaahay maxay caannimo kugu tartaa haddaad u gafto diinteena islaamka maxay caannimo kugu tartaa shalay adoo kabiir iska dhigaya timid maantana adigoo bisad ka liitaa timid maxaa waay mataqaanaa cuqubada kaa soo baxda mataqaanaa waa cuqubada gabdhaha Soomaaliyeed aad u geysatay sharaf dhaca gabdhaha Soomaaliyeed aad u geysatay ma laga yaabaa imise gabdhood ayaa markaad falkaas sameynaysay qaracantay gabdhaha Soomaaliyeed ma jecla haddaad 3 iyo 5 iyo 4 iyo 6 iyo xaraan iyo xalal aad sameynayso hala imaanin bulshada dhexdeeda ha kuuga ekaato brother ha kuuga ekaato dukaankaagana ka shaqayso danahaaga raaco hadda la taagan yahay marka hadalkiisa ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa inuu yiri dreamkayga waaye inaan 3 naa guursado 3 iska daaya mid inaa helaysataan kama aaminsanay muuqaalkayga maanta intaasuu ku eg yahay muuqaalkan muuqaalka xintaan kulmi doono waa walaalkii Maslax Cabdi Odile Soomaaliya ha noolaato